maasada ay xigta hogaamiye la yiraahdo markaan jigjiga yimi maasada hogaamiye qofkaan raabo way weydiinay hogaamiyuhu waxa weeyaan meesha bini aadamku hadduu u hagaagtana ay hodmaan haddii ay hagaagi weydana muxuu haayay ay hagaasaan hawraartii maasada baalmaray hoggeedii gees dhigay hubkeedii balse hoota ma noqon mana dhiman hankaygii mana dhimin haruubkii runuhiilintaydii weli waa halkeedii habrashana warkeeda heemaalka jiiftada qaar iga horreeyo hiba lagu manaystaa heemiyey duxdeedo waa huubaheedii waxaan heelka soo dhigay marka xuma la huursado samuhuna habeensado garashada hog loo qodo hinqashada dharaaruhu saban aakhir heegmaan wuxuu yidhi hanuunsame nebigii habboonaa himilada dad leeyahay duul baa u soo hadha hawadoodu been iyo damac iyo hunguri tahay hilinkay ku seegaan harawsiga ismoodsiis dadna way halleeyaan dad ma kala hambaystaha danta uma hagoogtaha maatada habaaskiyo halasuhu ku yuururo iyagoo habeenqada codka ii hibeeyiyo la dhex tegay heenaasuhu ma hogaamiyu noqon hadda heeryadii cuneen hafar baad ku nooshee hiilkiiyo kalsoonida hanashada ku xeel dheer sumadaha hogaamiye lagu hayb yaqaanaa waa hayal samaantiyo kibir laga hayaamiyo huwashada xaqiiqdiyo habka dhaqan addoonnimo hogashada ilaah garad dadka kiisa hodankaa iyo hebelka caydha ama kiisa hanadkaa iyo soomahoydaha hedda uuni suran tahay waa hadhacay eegtaan ku darsoo hadhkiisana horma gaara baan degin huga suudhni qaatiya inta shaalka haysun hadda hadalka kama guro inta hayla duug iyo calal hoolmay sidatiyo danyaraha hal soo biday hadda heegan kuma diro ka hiro u diido kadinkiisa ku handada yacni hogaamiyuhu marka uu noqdo nin inta wax haysata inta bini aadam bulshadu ay isleedahay waa inta ama ishu qabanayso ay aksas u yeelato laakiin sadee dadkii kale ee masaakiinta ahaa ee caydha ahaa ee ay noqdaan kuwa aan iyagu arki karin kaasi dee hogaamiye fiican maaha kabaqaadku heestiyo haahayda kuma sabo dadka oo haraad qaba sicir bararna heemiyey guulwada habowshaaho hoostiisa kama tuma heellada barwaaqada heer baa la gaadhaa haybhaybta reerkiyo hindisaha qabiilkaba hanku kaaga dhaartoo himilada danguudiyo dadka horumarkiisiyo hilin toosan raaciyo ifku waa habeennee halhays fiican reebuun halgan kubow kaa yahay yacni qofka hogaamiyihii waa qofka ku fikiraya inuu leegasi ka tago inuu dhaxal ka tago oo berri toolo lagu xasuusto oo aan reernimada iyo dadka in la sii kala qaybiyo waxa noocaasi aanay macno badan u samaynayn heer baa la gaadhaa la dagaha habaabiyo dulmanaha la heeriyo deganaha hungoobiyo qatanaha hanqaarmiyo hooyada danleydii hiilkaa filaanay kugu hooda sheegtaan yacni waxaa la gaadhaa heer marka qof maatadaada ka mida dhibi gaadho cidday soo xasuustaan ay adiga tahay sidii qisadii ka dhacday waxaa la yidhi markii muslimiinta uu haystay muctasim ninkii la odhan jiray wakhtiga cabaasiyiinta ayaa gabadh muslimiinta ka midabaa meelahan iminka turki ku yaallo baysantiin baa wakhtigaa la odhan jiray ayaa ninku dhex dhirbaaxay gabadhii waxay tidhi yaa muctasimaah yacni waxay xasuusatay hogaamiyahoodii marka dhibtu gaadhay inay hogaamiyaheeda xasuusataa dee waxay sheegaysaa inuu xaggeeda ka ahaa inuu qof fiican ka ahaa heer baa la gaadhaa dadku yahay hubkaagii marna yahay hugaagii hantidii iyo naftaadii noloshiiyo halbeegii hogoshiiyo daruurtii hadhaciyo ogbaadkii humaag baadi soocdii hawo aan la'aanteed habeen aanad barideen heer baa la gaadhaa dadku aan la haystiyo kii haystay kala noqon heer baa la gaadhaa hadalkaad tidhaahdiyo weedhaada haadiyo shimbiruhu higaadshaan heer baa la gaadhaa hurintaad la nooshahay kugu soo hirtaanay ku hareer istaagaan heer baa la gaadhaa haybadiyo karaamada rabbi kugu hagoogo adigoon ku hawshoon una hoorsan baabaco
dadku kugu hadaaqaan markaad adigu hogaamiye fiican noqoto uma baahnid inaad kaambeyn gashaba iyaga dadku isaga ka hadaaqaya kol haday sawirkaaga laabta ku qaataan cid kale uma baahnid heer baa la gaaraa hodannimo adduunyaha tigaada maalmuhu lurba aanay kugu hayn haddaad ka fikirto uun maxaad cuni adigoo dalkii dhammaad ee ilaalinayaba kolkaa heer waxaa la gaaraa qofka bini aadamka waxa la cunaya iyo hantida iyo waxaan aanay dee macna u sameeyay wax kasta dadku kala weynaadaan heer baa la gaaraa hodannimo adduunyaha tigaada maalmuhu lurba aanay kugu hayn heer baa la gaaraa hor alliya xilkaa gudo ka yahay horaalka heer baa la gaaraa adiga iyo hubsiimadu isu hooyo noqotaan heer baa la gaaraa hoos ruuxa kuu dhiga hawatiisu noqoto hamigiisu kala kaco heer baa la gaaraa waayeel habsoobiyo wiil haadka laacaa tusmadiyo hayaanka iyo taladiyo hogaankaba ku wada hibeeyaan dhanka kalena haybow heer baa la gaaraa xilka haysa mooye wax hagaaji laga tago aduukaasi noocaasi yahay wanaagsan xagga kalena dad mid kala jira oo isagu ahmiyadiisa weyn ay tahay inuu xilka uu haysto deetana kaga mashquula sida aynu aragnay madaxdan ama muslimiinta ama afrikaanka aynu aragnay deetana kaga mashquula inuu wax qabto heer baa la gaaraa maalqabeen hantiila ah wax kastoo ka soo haray kula yahay humaagiyo higil sheed ka muuqdo haddii aanad heerayn ama aanad haamayn ama aanad hiigayn hadhu jiid lagaa dido heer baa la gaaraa dadku yahay hangoolkii marka bowdku heermool la soo haybsho mooye goor kale aan haabkiiyo lagu haynin maankaba maalin alla maalintaad ama kaambeyn u baahan tahay un baad dadkan la xasuustaaye hadduu kii hore ay humaagiisiyo uu ahaa identity ay dadku u ahaayeen iyo baadi sooc kan kale waxa Soomaalida waxay tiraahdaa hangool laga maarmi waa mise la daryeeli waa magaranaysa Soomaalida reer guuraaga hangoolka mar alla marka meesha la oodayo ba xasuustaan marka kalena muskaasay isaga tuuraan maalin alla maalinta bowdku ama muskan reerka ku wareegsani la doono in la oodo ayuun ba hangoolka la tababar hangoolka ku jiray maalintaas un ba hangoolka la soo raadiyaa haday dadku sida hangoolka kula noqdaan waa meel si hooseysa heer baa la gaaraa ruuxan ku hoos iman ama hadalka ka gurin halbee ku jiidkiyo hantaala welifkiyo haraan ku boobkiyo lagu sada haraatida heer baa la gaaraa haheeye raaciyo hal hayn ku soonkiyo hadal sooma rogotada hayn waayay maqashii loo diro horweyn geel mar hadduu hogaamiye loo wada han weynaa haramaha la tuuriyo huubaha la saydhiyo hebelada cambaarta leh isa soo hareertubo hungayo inuu yahay niman hawsha wadi karin waa mid lagu hogaan karo waa hal lagu ogaan karo sababta maansadaan idinka aan idinku jeedinaya dhalinyaro ahaan waxay tahay ummad kasta mustaqbalkeedu waa dhalinyarteeda intiinan mid ka mid un baana berri toole deegaankan iyo dalkan dee hogaamin doona kolkaa mustaqbalka idinku kolba saad u ekaataan uba halkana u ekaanaysaa haddaad mustaqbalka idinku noqotaan dad aan xil badan dadkooda ka saarayna dee halkana way iska dayacmaysaa uun haddii aad mustaqbalka noqotaan niman sida hamiga ah inay meeshan ka dhigaan meel dunida kale la jaan qaadana dee way noqonaysaa uun mar hadday habaaraan maatadu higaajaan ama hiifo kuuligu waa habeen madow iyo gudcur soo hamaahsaday mana laha wax haybada waanu hoodo daran yahay yacni haddaad aragto ninka hogaamiyaha qofba qofkuu ka cawlan yahay kana taageer yahay oo ka cabanaya ama hiifaya waxay sheegaysaa inaanu ninkaasu nin dadkiisa u wanaagsan aanu ahayn waayo ilaahay waxa uu inoo sheegay waxa in laynoogu naxariistay inteena ducafada ah ee liidata haddii intaasi kula cawlaato kulle adiguna xagga sare waad ka cawlaanaysaa taasina waa iga intaa